kooxda dowladda hoose ayaa sameynaysa tababarka ay isku diyaarinayeen kulanka lixaad ee horyaalka kooxaha heerka koowaad ee caasimadda Hargeysa iyagoo kulanka lixaad u wajihi doona kooxda ciidanka asluubta. Kooxda dowladda hoose ayaa shantii kulan hore laba kulan oo kamid guul darro ku dhacday, laba kulan oo kamidna guul ay gaadheen, hal kulan oo kamidna barbardhac ay la kulmeen. Kulanka lixaad ayay wajihi doonaan kooxda ciidanka asluubta oo xilli ciyaareedkii hore barbardhac ku soo dhameysteen labadii kulanba. Tababara Dirdhaba ayaa ka waramaya kulankan sida isku diyaarinayeen iyo horyaalka waxa ay filan doonaan xilli ciyaareedka. marka hore bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahad leh marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan bahda TV-ga Astaan TV oo kulli u helan horumarka sportka Soomaaliland marka xiga insha Allah waxaan dhammaan tahniyada salaam u dirayaa haweenka sportka Soomaaliland meel kasta ay joogaan inta kadib su'aasha aadana soo noqdo kulliba diyaar garow waxa weeye koox walba diyaar garoobaysa annaguna koox baan ka mid nahay waxaan filayaa insha Allah mar haddii ay guuldareyno horeeyeen inta wixii hadda ka dambeeya inay 10 taariikh noo noqonayso waxa weeye tusaale noo noqon doonto taas oo nagu tala galay in waxa weeye wixii ka dambeeya insha Allah inaan si wanaagsan aan waxa weeye aan isugu diyaarino qaybta horyaalka inta hadhay iyadoo aan ku xisaabtamayno heerkan taaganahay halka aan doonayno inaan gaarnay tahay insha Allah meelihiina lagu yaqiinay iyo meelihii ahaa waxa weeye hormoodka insha Allah bidilal karim October kooxda ciyaarsa kooxda ciidanka asluubta sanadka hore labadii kulanba barbardhac baad kala qaateen hal dhibic iyo hal dhibic bal sanadkan qaab nooceed isleedahay kooxda ciidanka asluubta wadi waajahaysa kulanka koowaad kulliba waxa weeye macallin kasta waxa weeye wuxuu wataa kulli waxa weeye farsamadiisa iyo waxa weeye dadaalkiisa guushana waxa weeye gacanta Ilaahay ku jirtaa oo qofna lama oran karo aniga iska leh anigu waxaan laga yaqaanaa inaan dadaalno kaliya ciyaar wanaagsan muujino akhlaaq wanaag muujino inaan nasiibkeena ka qaadno insha Allah bidilal karim dhammaan ciyaartooydaadu kulankan iyo soo noqoshada horyaalka taam ku yihiin mise qaar baa ka maqan ma aad bay taam yihiin insha Allah way fiican aad bay fiican yihiin wayna dhameystirayeen qaraar buu soo saaray xiriirku dhawaan uu ku shaacinayo in ciyaartooyda wadamada dariska ka ciyaara ina sanado iyo ganaxyo ay la kulmi doonaan taas maxaad u aragtaa ciyaartooyda qaar kamid ma ka soo muuqdaan tartamada wadamada aan jaarkana horta aad baan u soo dhaweynaa qaraarkaas waana ku taageersanahay xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha inay waxa weeye qaraar ka soo saaraan hore looga fadhiyaba waxaan qabaa in la daahinba sanad garan laana waxa qof ciyaartoy lagu tabcay oo la doonayo inuu meel ka muuqdo inuu meel kale intuu tago soo dhaawacmo ama waxa uu soo lumiyo awoodii iyo karti laga doonayay looma baahnayn marka waxaan qabaa way ku saxan yihiin waana ku taageeraynaa aad iyo aadna waxa weeye waan ugu dhiirigelinay inay go'aamada iyo kuwa kale oo ka khatartan oo wax all waa kooxaha waxtarna u ah inay ku dhaqaaqaan ay ku kacaan ciyaartooydu ma inaga fasax qaataan mise amar la'aan bay ku baxaan waji walba way leeyihiin waji walba way leeyihiin saaxiib kulliba qaar ma inta badan way fasax qaataan inta marka laga yimaado qaraarka xiriirka kulanka ciidanka asluubta la ciyaaraysa dhammaan ciyaartooydaadu waa ku wada taam maxaad halkan farin aad ugu diraysaa taageerayaasha kooxda kubadda cagta dowladda hoose insha Allah bidilal karim waxa leenahay insha Allah dowladda hoose waxay la soo noqon doontaa insha Allah waxa weeye hogaankii lagu yaqiinay iyo waxa weeye ciyaar wanaagii insha Allah dadaalkii lagu yaqiinay dowladda hoose la soo noqon doontaa insha Allah guushna waa halkeeda